recording has been started. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa golaha 1960 golaha xogta shacabka Soomaaliyeed oo caawa si noogu yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Puntland. ahla gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka Puntland lagu qabanayo bishan Maaris 15 soo dhawow waa Maxamed Cabdiraxmaan Dhabalcad magacaygu waa dhagood golaha 1960 golaha xogta shacabka Soomaaliyeed dad fara badan ka dhageysanayaan caawa iyo waliba website-ka iyagoo ah golaha 1960.com oo dad fara badan loo ka dhageysan doonaan youtube-ka codkaaga qaadi doonaan wasiir maadaama waqti badan ku aadan haynin waxaan jeclaan lahaa waa maxay sababaha keenay qabanqaabada hadda adigu aad shirka guddiga u tahay ay qabanqaabinayaan waa maxay sababaha keenay in waqtigana ku soo aado maadaama 20 sannadood Puntland wax shiro wada tashiya loo qaban maxaa keenay hadda waqtigan xaadirta inta loo qabto بسم الله الرحمن الرحيم وهرين عادي عاد بين الحكومة العلمية كلها 1960 وعاد بانو فرح سنة رنتي إن كل مدة كده وكحو معنا وقت كوبية لكن عادي عاد بانو مع سنتين إن إمارة فرصة باني وصاحدان أنت عادان كيرا هذا أنت لحري الشركة سيد الله سعطان بتدوادي بيشي فبرايو هذا الصورة في أيام مدول لو بريئة كلها حكومة دولة بنتلاند الصومالي waxay shir ku jireen magaalada Boosaaso shirkaas markuu soo dhamaadayna waxa madaxweynaha dawladda Puntland uu ku dhawaaqay in reer Puntland ay isugu yimaadaan shir wada tashi oo looga tashanayo ayaha Puntland wax badan la isaga wareysan doona hadii la haydmo shirkaas qodobada looga dooday muddo labada bari waxa kamid ahaa dalka xaaladda uu marayo khaasatan gudaha Puntland hadday ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhinaca amniga hadday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo looga hadlay arrimaha Soomaaliya khaasatan hanaanka geedi socodka hanaanka dhismaha dowladnimada ee ku dhisan federaalka ama federaaleynta run ahaantii waxaa aada loo cabiray caqabadaha soo noqnoqonaya muddada dheer ee dalka ka jira hadday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo hadday ahaan lahayd caqabadaha soo wajahay dhismaha dowladnimada ee ku dhisan hanaanka federaalka ee lagu heshiiyey taas markii dhinacyo badan laga istaagay idinkoo ogna haddana in xukuumaddu ay iyadu mas-uul uga tahay una dhaaratay arrimaha siyaasadda Puntland waana u qaadan karnaa haddana waxaa la garawsaday muhiimadda ay leedahay in arrintaas wadatashi la geliyo dadka loo yeero dadkuna ay maaragtay qeyb ka noqdaan processka ama hanaanka lagu gaarahayo lagu jihaynayo siyaasadda iyo arrimaha kale ee reer Puntland taas ayaa keentay in shirkaas la qabto waxa salka ku hayana waxa weeye hadday noqoto dhinaca arrimaha federaalka sida la socotaanba Puntland muddadii hadda ay jidhay oo 22 sano ahayd waxay juhdi badan oo naf iyo maal bala gelisay sidii dalkan dib loogu yeegleeli lahaa dowladnimadii iyadoo la marayo hanaankaas dib heshiisiinta iyo dhismaha dowladnimada loo marayo ee ah federaalka waxaa la socotaan in qaababka kala duwan ee dalkan la isugu keenayo ama ha noqoto 4.5 oo habka qabiilka wax lagu qaybsanayay ama ha noqoto federaalka laftigiisa iyo dastuurkiisa iyo dejintiisa ama ha noqoto in dib loogu laabto caasimadii oo dib maaragtay loo xoreeyo oo dowladnimadii ka shaqeyso intaba doorka ay ku lahayd Puntland haddana sidaas ay tahay waxaa soo baxday in wajiyo cusub oo caqabadahooda wata ay soo baxeen oo hanaankaas lagu heshiiyey u muuqdo inuu dalka sii daciifayo meelo badanna dib u noqonayo taas ayaa waxay keentay in marka dib laysu wareysto oo marka doorka ay Puntland arrimahan ku leedahay iyo sida ay u wajahayso ay noqoto mid wada tashi la geliyo dadkuna taladooda ku yeeshaan oo dadkana loo warramo lana dhageysto haddii lahayn wasiir waxaa jira madaxweynuhu maalintii uu ku baaqayo shirka in la yimaado hadallo badan dadku ka keeneen 7 bisha kii ahaa maalkii kasii horreeyay dadku hadal badan bay ka keeneen baaqidii labaad yaa ka qaybgelaya sideebaase looga qaybgelaya yaa mas-uuliyadda iskale cidda ka qaybgelaysa yaa soo xulaya qaabkee bayse ku imanayaan aada ba umahadsantihiin sida la socotaan marka lagu dhawaaqay shirka waxaa jiray war-saxaafadeed ka soo baxay golaha xukuumadda oo xusahayay shirkan hadda aan abaabulayno oo lagu jira qabanqaabadiisii iyo wicitaankiisa shir saxaafadeedkaas ayaa waxaa ku xusnaa qeybaha kala duwan
la rabo inay shirka wadatashiga ah ay qeybta ka noqdaan, hadday ahaan lahayd golayaasha dowladda puntland, hadday ahaan lahayd xubnaha nooga jira golayaasha dowladda dhexe federaalka, hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta puntland, hadday ahaan lahayd isimada iyo dhaqanka, hadday ahaan lahayd ganacsatada iyo dadka kale ee waxgaradka, hadday ahaan lahayd dadka dibadda ama jaaliyadaha la yidhaahdo ee dalka dibadda kaga nool. qeybahaas kala duwan ayaa la cabiray. guddiga qabanqaabada shirka oo hadda arrintaas gacanta ku haya ahna ayagu kuwa soo xulaya maxaa la yidhahdaa magacyada iyo shaksiyaadka la rabo inay kasoo qayb galaan dalka, maxaa la shirka kasoo qayb galaan wadatashiga, ayaa ah kuwa uxil saaran in ayagu ay martigeliyaan dadkaas, ama ha noqoto dhinaca martigelinta ama ha noqoto ergada laftigeeda iyo xulideeda, iyagoo ku saleynahaya maxaa la yidhaha qeybahaas kala duwan ee aan soo magacaabay ee war-saxaafadeed ku xusnaa. waayahay wasiir, haddii maadaama ay dawladdu u qaabilsan tahay dhinaca siyaasadda hogaaminteeda iyo jaangooyinteeda ay puntland u qaabilsan tahay, waa markaa waa madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiiradu, baahida dadku ay dawladdu u qabtaa in ay jaangooyin siyaasadeed iyo tijaaha puntland loo jihaynayo iyo ayakatashiga ereyga la yidhahday aada usoo noqnoqday, waa maxay baahida ay dawladdu uga qabtaa inay dadka u bandhigto? run ahaantii sidaas aad xustayba, aniguna markii hore xustay waxa weye dawladdaada waxaa loo dhaariyay xukuumadda waxa weye inay ka shaqeeyaan arrimaha hawlaha waajibaadyada kala duwan ay uxil saaran tahayna iyadu u hogaamisa dalka go-aanana uga gaadho. ayadoo sidaas tahay ayaa markii waa wax arrimo caadiya oo dhaco weeye, markii dadku ay muddo joogaan in dadkii la waco shirar la qabto noocan oo kalea. waxaad la socotaa dalka xisbiyo dalka siyaasadahaas maaragta warka u gaarsiiya ama ay uga qeyb galaan kama jiraan weli, inkastoo hadda dadaal badan lagu jira in arrintaa la hirgeliyo. dadku waa siyaalo kaloo ay isu maqlaan ayaa jira oo maaragtay arrimahaas u dhageystaan. waxaa marka muuqatay muhiimadda ay leedahay 21 sano ay puntland jiday. runtii xiliyo horey loo qabtana way jireen shirar oo dadka la isugu yeeray, haba ka duwanaadeen waxyaalaha la rabay inay kasoo baxaan hadda sida loo jihaynayo. marka waa muhiimadeeda ayay leedahay in dadku ay qeyb ka noqdaan arrimahan oo kale, weliba markay timaado hadda arrimaha federaaleynta ee dadka reer puntland labadii ujeedo ee loo aasaasay puntland oo ahayd iyaduna inay yeelato nidaam dawliya iyo hay-ado dawladeed oo shaqeynaya iyo kala dambeyn, dhinaca kalena lagu baadigoobo soomaaliya iyo dhismaheedii in dib loogu yarleelo oo federaal ay noqoto. haddii caqabado ay soo wajaheen dalkii ay ka yimaadeen, arrimaha qaarkoodna ay horusocodkooda gaabis ka noqday, in dadka loo waramo meesha maraysa xaaladdu, dabadeedna siyaasadaha iyo jihaynta la qaadanayo ay qeyb ka noqdaan talooyinkooda, maadaama shirkuba uu yahay shir wada tashi. aad bay muhiimad u leedahay. taas ayaana keentay in dadka la waco. mar walbana waa muhiim in dadka loo waramo oo loo maaragtay xogta dib loogu celiyo meesha wax marayaan. hadday ahaan lahayd horumarka, saad ogtihiin puntland waxaa ka socda dadaalo badan oo kala duwan, hadday ahaan lahayd hanaanka dimuqraadiyeenta, hadday ahaan lahayd ciidamadii oo dib habeyn ku socoto iyo hay-adaha amniga, hadday ahaan lahayd shaqaalihii ay dib habeyn ku socoto iyo hagaajin, hadday ahaan lahayd dhaqaalihii oo dib loo habeynayo. marka taa laftigeedu waxay kamid tahay waxyaalaha dadku ay u baahan yihiin inay maqlaan oo maaragtay xogtii la isla wadaago, dabadeedna waxyaalaha u baahan in dadku ay go-aanadaas qeyb ka noqdaan talooyinkooda ay ku darsadaan lana dhegeysto haddii lahayn. marka la eego ereygeeda ayakatashi waxa u muuqdaa in ay tahay in dadka reer puntland loo jihaynayo meel ka baxsan dowladda soomaaliya. sidoo kaleeto marka la yidhaahdo guddida ayaa magacaabaysa cidda ka qeyb gelaysa shirka, iyada laftigeedu waxay u muuqataa in jaangooyin siyaasadeed oo already lasii cabiray halkaa inay ka muuqato. miyaa lagu sifayn karaa go-aan ay dadka reer puntland gaareen, maadaama ay tahay guddidu shaksiyaad ay usoo magacooda dowladda inay jaangooyinta gaaraan? milwalwaran kale dadka reer puntland baa go-aan kaa gaaray. maxaase looga jeedaa ereyga ayakatashi? aada iyo aad ba umahadsan tahay. run ahaanti waana ku faraxsannahay dadkayagu inay waxyaalaha dareenka ay ka qabi karaan ay nala wadaagaan oo markaas ay ka helaan jawaabteeda tooska ama sida wax u jiraan ay ogaadaan. aad baan usoo dhaweynaynaa kelmadda ayakatashi marka laga hadlayo. horta markooda waxaan rabaa inaan xuso
shirka ay golaha xukuumadda dowladda puntland u wacday haatan qabanqaabadiisa lagu jiro ma aha shir dastuuri ah, waxa weeye shir wada tashi oo dadka qeybaha kala duwan ee loo wacay la rabo inay jihada la qaadanayo xogteeda meesha wax marayaana helaan, qeybna ay ka noqdaan haddii la ahaydmo oo la dhegeysto talooyinkooda kala duwan. waana la socotaayo xataa dowladnimada iska badaayo marka hore aan ka hadlayo xisbiyada iyo markay jiraan xisbiyadu waxay yeeshaan shirar ay dib isugu laabtaan oo ay waxyaalaha qaarkood siyaasadaha ku jaangooyaan. dalkii xisbiye kama jiraan, marka in dadkii inta loo waco xogta lala wadaago meesha wax marayaan, caqabadaha jira iyo horumarka jiraba, dabadeedna halkaas horey looga wada socdo laguna qaato go-aano ay qeyb ka yihiin. taas muhiimadeeda ayay leedahay, laakiin ka anigu haatan ma dhihi karo jiha cusub ayaa dadka loo jihaynaya iyo looma jihaynayo midnana ma dhihi karo. waa waxyaalaha la rabo dadku in la dhegeysto talooyinkooda iyo xaaladda dalka jirana looga warramo. taas waa midaas weye. tan ah haddii ay guddiga la qabtay iyagu ay jaangoynayaan ama xulayaan dadka shirka ka qeybgelayana, marka hore ayaan ka hadlay, waxa weeye shirka dadka ka qeybgelaya waxay ku xusnayd war-saxaafadeedka kasoo baxay golaha xukuumadda kasoo baxay. waxa dadka qaabka lagu martigelinayana waa qaabkaas weye. haddii puntland isimada jira dhammaantood iyadoo aan kuwa gaara si gaara loo xulanayn, meeshay rabaanba ha joogeen, dhulka dastuuriga ee reer puntland ayaa shirka lagu martigelinaya. siyaasiyiinta kala duwan xilalkay rabaan ha soo kala qabteen, hadday madaxweyneyaal ahaayeen, hadday ku-xigeenno ahaayeen, hadday wasiiro hore ahaayeen, haddii ay siyaasiyiin kala duwan heerkay rabtaba ha noqotee kasoo shaqeeyeen, ayagana waa lagu martigelinaya. maxaa la yidhahdaa dadka kala duwan ee waxgaradka ah ayagana sidoo kale lagu martigelinaya, iyadoo aan loo fiirinayn qofku muxuu fikira oo qabaa ama muxuu xagge ujeedaa. xataa kuwa siyaasiyan loo arki karo inay puntland iyagu maantay u arkaan si kale ama kasoo horjeedaan, laakiin reer puntlandna waa ku martigelinaynaa si loo dhegeysto fikirkooda, wixii saxana dadka ay la qaataan haddii lahayn. waayahay taa markaan halkaa kaga tago, wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa tafiraleynta waxaa jira degmooyin fara badan oo aada u samayseen maamulkii deegaanka, kuwo badanna waa dhiman yihiin. maxaa idinka hortaagan dhammaanba degmooyinka gobolada inaad u samaysaan dadkii deegaanka xukumayay ee dowladii hoose? maxaa dhacay? sababto waa maxay? waa u dhamaystiri laadihin. aada iyo aad ba umahadsan tahay. run ahaantii qorshahayaga wuxuu ahaa sanadka hadda lasoo dhaafay inaan sidaan qorshaha ku darsanay 6 degmo inaan dhisno, anagoo ka duuleyna duruufaha kala duwan iyo baahiyaha iyo prioritiska kala duwan ee hor yaala wasaaradda. hase yeeshee iyadoo sidaas ahayd, wasaaraddu waxay dhistay 8 degmo oo qorshihii kor ayaan u dhaafnay. run ahaanti waan jeclayn degmooyin kalena inaan dhisno oo dadka aan usii horumarino in golayaashooda iyo systemkooda dawliga u dhisan yahay, inta aan la dhexgelin barnaamijkan dimuqraadiyeynta oo isagu dee la wareegi doono dhismahaas golayaasha markii la gaaro xilligeeda. haatan way noo qorshaysan tahay sanadkan inaan dhisno haddii la ahayd degmooyin kala duwan oo ka maaragtay degmooyinka puntlandna heerkay rabtaba ha noqoto oo aanu dhisi doono insha allah. marka waa hawl aan ku jiro. sanadka horena runtii si fiican looga shaqeeyey, sanadkaana haddii la ahayd kuwo badan ayaga la dhisi doono. annagana waxaa naga go-an in degmooyinka puntland ee kala duwan aanu hubino inay leeyihiin maamulkii oo golayaashii deegaanka uu ka jiro oo maamulka ka shaqeynayo, makaaniyaadkii iyo hay-adihii kala duwanaana ay shaqeynayaan oo dadkii adeegii ay gaarsiinayaan. hadda waxaan dhowaan golaha xukuumaddu ay meel mariyeen dib u eegis lagu sameeyey sharciga number 7 oo faahfaahinahaya dadka iyo adeega sida la rabo in loo gaarsiiyo, dowladaha hoose iyo shaqooyinkooda ay leeyihiin iyo waajibaadyada saaran iyo daadejinta maamulka oo la rabo in dalku dee federaal weeye. federaalnimada sidaynu ugu doodaynana waxaan rabnaa dadku inay ilaa heer tuula ay helaan adeegyadii kala duwanaa, iyaguna ay noqdaan kuwa go-aanada u qaadanaya arrimaha quseeya noloshooda iyo siyaasadahooda haddii la ahaydmo, iyadoo siyaasadii guudna lagu daadejinayo. marka arrintaas way naga go-anta haddii la ahaydmo inaan wadno, waana wadayna haddii aan lahayn. waayo wasiir anoo adiga aada iyo aada warayskaaga ugu mahadsan golaha 1960 aa siisay dadka reer puntland caawa ku dhegeysanaya, ummadda soomaaliyeed ee websaydyada kaa dhegeysan doonta. maxaad jeceshahay caawa kula dardaaranto? maxaad jeceshahay inaad fariin u gudbiso? maxaad ku oran lahay? dadka reer puntland ugu horeyn waxaan jeclahay inaan aada iyo aada ugaga mahad celiyo dadaalka kala duwan ee ay dalka ka wadaan, ama ha joogeen gudaha ama ha joogeen dibadda, oo ay dowladooda gacanta ku siiyaan ka shaqeynta arrimaha kala duwan ee loo idmaday, hadday tahay sugidda amniga,
oo maanta sida la socotaan dee dhacdooyinku way dhacaan meel walba laakiin puntland ay tahay meel nabad ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan u ah hoy u ah oo loogu soo hirto nabadda ka jidha oo maanta sidaanu marar badanba ku celcelinay meel kasta oo kamida dhulka puntland ay maxaa la yidhahdaa ka jidha nabad oo qofku uu nabad ugu noolaan karo arrintaas dadku gacanta ay ka geystaan oo dawladda ku siiyaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaana ka rabnaa arrintaas in laba jibaaro waxaan ognaha meelaha qaarkood inay ka jiraan maxaa la yidhahdaa ururadaas argixisada ama dhacdooyin ay ka dhacaan dadka waxaa la rabaa in loo midoobo guda iyo dibadba in meesha aynu joogno iyo nabadda aynu haysano aynu horey uga sii fiicnaano haddii lahaydmo soomaaliya inteeda kalena kala shaqeyno sidii dhibaatada meelaha ka jira haddii lahaydmo ay uga bixi lahayd in dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee ay dawladdu gacanta ku hayso iyo kuwa kale oo qorshahaba ku jirana sidaas si lamid a iyagana garab loogu noqdo dawladda oo loogu garab istaago dalka waxyaalo badan baa ka socda jidad baa qorshaysan qaarkoodna gacanta lagu hayaa sida jidka ceel daahir iyo ceergaabo oo qorshaysan haddii lahayd mid laami la saaro marka wejiga kuwaa dhamaado jid u leexan doona haddii lahayd malaas qoray jidka lafagorayo ilaa caluula tegi doona jidka garacad iyo isku xiri doona tuurdibi iyo jidka laamigaasee laftigiisana hadda gacanta lagu hayo dib u habeyntiisa iyo jidad badan oo kale aan rabno dadka in la gaaro haddii lahaydno oo meelaha awal la dhihi jiray gaariwaaga oo adeegyadu iska yaraayeen haddii aanu dhahayno maamul baan samaynaynaa maamulo golayaasha deegaanka iyo maamul adeegyadii baan rabnaa inaan baahino laakiin aysan jirin jidad dadka lagu gaaro ama si fudud loogu gaari karo caqabado ayaa mar walba imaanaya waxaan rabnaa arrintaa in looga gudbo dalku inuu maaragtay kaabayaashii dhaqaaluhu ay dib usoo laabtaan oo jidadkii la hagaajiyo aeroboorradii baa laga shaqeynayaa dekedaha hadda socda waa la socotaan dekedii garacad oo iyaduna hadda meel fiican maraysa arrinta oo gebagabo ku dhow tii boosaaso iyadana gacanta lagu hayo laas qoray oo iyaduna qorshaysan iyo ayl iyo meelo kaloo kala duwanba inaan haddana rabna inaan jetiskii laga sameeyo haddii lahaydmo marka dadka waxaan ka rabnaa inay arrintaas kuna baraarugsanaadaan dawladdana ay ku garab istaagaan haddii lahaydmo arrinta soomaaliyana caqabadaha ka jira waa la socotaan khaasatan arrinta federaaleynta oo aysan ahayn wax quseeya systemka iyo siduu dhisan yahay laakiin ah aragtida habda ku xiran shaksiga markaas dalka hogaaminaya oo mas-uuliyadda u qaaday inuu dhamaystiro shuruucda dalka ka jira oo dastuurka uga horeeyo dalkan ugu hogaamiyo hanaankaas la qaatay ee dawladaha qeybta ka ah dawladda federaalka ah ay noqdaan kuwa talooyinka maadaama iyagu dalka ay mas-uul ka yihiin oo ay amnigii ka shaqeynayaan oo dhaqaalihii ka shaqeynayaan oo arrimihii bulshaha ka shaqeynayaan inay noqdaan kuwa iyagu talada maxaa la yidhaha jaangoynteeda wax ku leh caqabadaha ka jira waa la socotaan sida ciidamadii dalka loogu talagalay inay argixisada la diriraan oo dalka amniga kusoo celiyaan aada la socotaan in lagu burburinayo maamuladii dalka ka jiray oo hadda waxaa gada ka socda oo kale a ujeedaan dadka soomaaliyeed marka waxaa la rabaa arrimahaas inay ku baraarugsan yihiin in ay gacan ka shaqeeyaan gacanna ka geystaan inaan dalku dib u noqon oo dan qof gaarihi leeyahay oo shalay yimid berrina tegaya uusan dalku dib ugu burburinay intii lasoo maray waynu ognahay oo hadda inta maanta dibadda ku noolid ay kaliftay inay dalkaas uga cararaan burbur iyo amni darro iyo nabad darro ka jiray daraaddeed iyo nolol xumo inaan dalku maanta meeshu marayo uusan dib uga noqon laakiin laga wada shaqeeyo in horey loo socdo iyadoo aan loo eegeyn qabiil iyadoo aan loo eegeyn deegaan gaar ah haddana dalkii in laga shaqeeyo in horey u socdo aan lana aqbalin shaksi isagu markaa xildoona ama kii xilka kasii dhammaanaya raba inuu dib usoo ceshado inuu asagu u ekaysiiyo dalka iyo jihadu aadayo inuu u ekaysiiyo sida asagu uu rabo inaan aqbalina dadka waan ku baraarujinayaa aada iyo aad baan runtii dadka soomaaliyeed ilaahayna ugu baryaa inuu meesha ay hadda joogaan horey uga sii maraan meelaha dhibaatadu ka jirana ilaahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo ugu bedelo meelaha aada iyo aad baan umahadsantihin waayahay kaasi waxaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta ee dowladda puntland waa maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo golaha 1960 caawa u warramayay aana guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka bisha May 15 ka dhici doona magaalada Garowe intaas waraysi inoogu